gudoomiyaha golaha wakiilada golayaasha dowladda senator cabdiraxmaan ahna madaxweynihii hore ee puntland gudoomiyaashii hore ee puntland dhammaan kasoo qaybgalayaasha halkan ay ugu horeeyaan guddiga aan martida u nahay ee guddiga doorashooyinka meelgaarka ee puntland dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii sidaa la wada cabiray caawa waa habeen puntland taariikhdeeda qeyb ka mid ah, waa habeen ka mid ah habeenadii faraha badnaa ee dadka reer puntland ay ugu jireen dowlad dhiskooda laga soo bilaabo 98 ilaa iyo maanta, oo runtii taariikh aada iyo aada u kala duwan oo kuwo farxadeed iyo kuwo murugalaba isugu jirtay lasoo maray sida bini aadamka oo dhan uu u maro. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa inaan maanta soo gaarnay meel aan rabno inaan xaqiijino asaasayaashii puntland wixii ay ku taamayeen in loo dhowaan karo. in badan oo halka ka hadashana ay qireen in hadafkaasi inuu xaqiiqoobi doono ay u dhowdahay haddii ilaahay ka dhigo. waan dareemi karnaa marxaladahaas ay dadka reer puntland jeclaayeen oo xeerkooda ugu horreeyey ama jaartarkooda hore ugu horreeyey ku dhigteen inuu hergeli waayey nacayb iyo doonis la-aan ma ahayn, laakiin caqabado xaqiiqi ah oo dalka haystay ayaa mar walba dib u dhigayey. ha ugu dhowaato dowladdii cabdiraxmaan faroole oo runtii gaartay meeshii ugu dambeeyey ee technical uu ku qabsoomi lahaa, laakiin duruufar siyaasadeed iyo tuhun siyaasadeed sababtiis ugu qabsoomi waayo isagana waa halka sheegay aan rabin inaan dib ugu noqdo. iyo marxaladihii ka dambeeyey oo caqabado ay dhici karto kuwa inay ka duwanaadeen ay sabab u noqdeen, ama la dhihi karaba siduu guddoomiyuhu hore sheegay doonis la-aan. xilka markii aan qabtay aniga iyo saaxiibaday waxaan aada u daraasaynay dhibaatooyinkaas qabsaday dadka dareenkooda iyo doonistooda ah in doorasho qof iyo cod ay la helo, oo mar walba dadka reer puntland markay hadlaan uu hadalkooda ku jiri jiray, oo mar walba ay dhaliili jireen in nidaamkaas lagu sii jiro sidii looga bixi lahaa. dhaliisha ugu badanna ay saari jireen madaxda dowladda iyo siyaasiyiinta markaa xukunka haysa, oo loo muujin jiray inay iyagu daraf ka yihiin inaysan hirkelin. annagoo taas wax ka baranayna, dhaliilaha ugu badan oo lagu dhaliili jiray waxay ahayd in wakti aan kaafi ahayn dowladdu u igman jirtay guddiga, inaysan garab istaag dhinaca dhaqaalaha ay kala bakayli jirtay, inaysan madax bannaani siin jirin. waxaas waa dareenka dadka, inuu jiro iyo inay jirin waa wax kale. waxaan ku dul dhisnay arrimahaas dareenkaas dadka inaan u rumayno, inaan annaga u muujino inaan daacad ka nahay, in hadafkoodii ahaa doorasho qof iyo cod ah iyo ka qaybgal talada siyaasadda oo loo dhan yahay ah inay la helo. inaan qaadnay wax walba oo xukuumad ahaan waajib nagu ahaa ay ama suureyn gelin karay ama fududayn karay. waxaa ugu muhiimsan inaan guddigii wakti habboon aan magacaabnay, inaan intii karaankeenna ah ku dadaalnay annagoo waxyaabo badan xeerinayna inuu guddigaas u muuqdo guddi shaqadaas ku filan. in muddadii yareed ee hadda joogeen iyaguna dareemeen, dadkuna ay dareemi karaan inaan madax bannaani buuxda oo sida sharciga dastuurku dhigayo aan siinay. inaan miisaaniyaddii iyagu ay u arkeen inay ku filan tahay, annagoo weliba duruuf adag dhici karto inayna soo wajahdo, laakiin niyad wanaag dartiis inaan u qaadanay intii ay ahaydba, oo uu muujiyey guddoomiyuhu tii hore inay 800 oo jeer ka badanta. anu sidaa uma xisaabin, maxaa yeelay iyagaa soo qortay. laakiin intaasba waxay tusaale u ahayd inay naga go-an tahay inay doorashadan dhacdo. sababtay nooga go-an tahayna waxa weeye waa doonistii dadka. 98 bay ku qorteen jaartarkoodii, welina waa sugayaan. marka waa xaq dastuuriya oo dadku reer puntland leeyihiin, ma aha in anagu jecelnahay ama necebnahay.
xafiiska waxaan u joognaa waxaan noola igmada inaan fulino oo ay ka mid tahay taas marka ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa inay arrintaasi hirgasho oo ay ku hirgasho waqtiga iyagu hadda ay qorteen iyo sida ay u qorsheeyeen oo runtii aan dhihi karo si aada u qurux badan oo maangal ah ayay ahayd iyadoo oo aysan ka marnayn inay caqabado imaan karaan laakiin waxaan rabaa caqabadahaas imaan kara in loo wada joogo waxaan kaloo runtii muddadaas dheer oo puntland geedi socodka soo waday oo dowlad dhiska soo waday saldhig u ahaa oo dhextaal u ahaa hoggaanka dhaqanka oo mar walba hirgeliyey in dowladda puntland ay waarto oo jirto oo doorashooyinkooda si xor ah ay ku dhacaan oo mar walba turxaamaha jira ay ka saari jirtay waan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii dhaqanka ee arrintaa ka soo qayb qaatay waxaan kaloo mahad celinaynaa culimmada oo mar walba la garab taagnaan jirtay dadka reer puntland inay midnimadooda iyo nabadgelyadooda iyo horumarkooda ilaaliyaan dhaqanka bulshada rayidka ah cid walba oo gabdho iyo wiilal iyo odayaal iyo haweenba isugu jiraan inay ilaashadeen dowladnimadooda iyo midnimadooda iyo horumarkooda waxaan rajaynayaa intii inay haddana u wada istaagaan in arrintaas runtii dadku marmar ay ka muujiyaan cabsi ah waayo dadka soomaalidu waa dad xoogaha tartanka ku xun oo markay tartamaan aanan tanaasulka aqoon oo meesha u dambaysa taga amay khilaafaad iyo kala ta keentaa dad badanaa cudadaas qaba laakiin waxaan is rajaynayaa in arrintaas laga wada qayb qaato in laga gudbo oo isku tanaasulka iyo wax isku quurka iyo is-ogolaanshaha in laga wada shaqeeyo annagoo og ciladaheenna ayaan rajaynayaa waxaa ii muuqanaysaa puntland inay u sahlan tahay inay doorashadaas dhacdo marka la fiiriyo amniga ka jira marka la fiiriyo dowladda dadka marka la fiiriyo imkaaniyaadka dowladeed ee aan hadda haysano intaasba waxay suuragal ka dhigi karaan in doorashadaasi ay dhacdo annagoo ka rajaynaynaa dadka daneeya dimuqraadiyadda iyo beesha caalamkan inaan gacan fiican ka heli doono intaa marka la isku kabto laakiin mar walba waxaa ka horeeya cidda wax ku taraysa inaad adigu qorshahaaga iyo doonistaada iyo sida aad ay u caddahay inaad si wanaagsan usoo bandhigtid waxaa runtii anna ku biirinayaa khabiirkii muddadii horena kala shaqeynaya jerry inuu mar labaad joogo oo diyaar u yahay iyada naftirkeeda waa sifo fiican waan isleeyahay iyada naftirkeeda qayb bay ka qaadan doontaa in riyadan ay rumowdo dabcan dadka soomaaliyeed waxaa la yidhi dee 50 sano doorasho ma gelin doorasho qof iyo cod ah ayaysan gelin laakiin intaa waa inu isdooran jiray doorashooyin ayaa iska dhici jiray siyaabo kala duwan u dhacdhaca marka conceptiga ama fikirka doorashada way fahamsan yihiin dhinac kale marka laga fiiriyo oo waa isdoortaan oo hadda maalin walba waxaad aragtaan guddiga maxaa leedaha golayaasha deegaanada oo isdooranaya guddiyada ardada jaamacada oo isdooranaysa ururada bulshada oo isdooranaya dhalinyarada oo isdooranaysa haweenka oo isdooranaya kambeynadu waa badan yihiin aniga waxyaabaha dhiirigeliya waxaa ka mid markaan kambeynka ku jiray magaalooyin badan oo puntland aan tegay oo aad baan ula yaabay sida peacefulka aan kambeynka uga sameynay dadku siday usoo baxayeen siday organizedka u ahayeen waxay muujinaysaa doorasho qof iyo coda inay dhici kartay haddii maaragtay lagu daro inta yaroo ka dhiman oo shuruucda iyo xeerarka ah si waxa soo baxa ay legitimacy u helaan maxaa yeelay waxa baqdinta laga qabo waa dhinaca legitimacyga marka si loo helo waxyaabihii agabkii ku habboona intaas waxaan ku biirinayaa anoo ku hadlaya magaca dowladda inay dowladdu ay ka go-an tahay waxa dadka ka go-an oo ah inay isdoortaan annagu intaasaan ayidi doonaa wax walba oo karaamkeenaana waan geyn doonaa sida madaxweyne ku-xigeenku sheegay cabsi ma qabno sidoo kale xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan arrintii ku dhacday shuuqe oo kale nagu dhici mayso xisbigeena annagana waa furanaynaa ilaahay
وديار جروبنا وقت في عمل نسيسان انت الدولة ده وديار انتي نقلتها البابدو ادي فري انت نقلت كريسان مركا tartanna waa u diyaar garoobeynaa inaan tartanno marka taasna waxaan rajaynayaa inay qayb ka qaadan doonto inay xukuumaddu ruuxadeeda iyo dowladdu ay dhiirigelin doonto nidaamka xisbiyada badan inay hirgelaan intaas aan kusoo uga gudbo oo runtii aan mar labaad tbeg ugu mahadcelinaya shaqada ay qabatay wasaaraddu arrimaha gudaha howlaha ay kala qabatay oo runtii u igmanayd dhinaca dimuqraadiyadda ilaa hadda inta la gaaray xukuumad ahaan waa ku qanacsanaa inay shaqo fiican qabsoontay inta dhimanna waa rajaynaynaa inay si habsami loo wanaagsan u qabsoon doonto wax yar haddaan halkaa uga baxo inta puntland dabcan dalka soomaaliya ergeyga wakiilka halka u fadhiya puntland unsom wuxuu sheegay inay sanadka 2021 doorashooyin heer federaal iyo kuwa dowladeedba ka dhici doona dabcan puntland markii horena hormuud bay u ahayd dowlad dhiska iyo guud ahaan puntland iyo soomaaliyaba haddana nidaamkan waxaan rajaynayaa inuu noqdo doorasho sax ah inay dhacdo hadda waxa ay noo sheegeen shuruudaha oo waqtiyeysan iyo xilliyada iyo sida ay wax noqonayaan iyo processka oo dhan xilli goor hore ah runtii iyada oo doorashadii federaal hal sano ka dhiman tahay ilaa iyo hadda wax cad oo la yidhi sidaasaa doorasho u dhacaysaa lama hayo puntland waxaad ogtihiin 2012 shirarkii garowe 1 iyo 2 iyo waxyaabihii socday waxaa aada loogu celcelin jiray in nidaamka 4.5 laga guuro dastuurkii markii si gumaalgaara loo ansixiyey 2016 waa la gaari waayay mar labaad garowe waxaa lagu saxiixay heshiis muujinaya inaanan dib dambe loogu soo noqonayn nidaamkaas haddoo hal sano ka dhuwan tahay ayaa baarlamaanka ka doodaya see wax noqonaya oo guddiyo baaritaan ka sameeya sida doorasho u eg tahay runtii annaga ilaa hadda puntland waxaan rabaa in aan ii sheego waxa xamar ka socda ama guddiyadaas leeyihiin waa soo bandhignay wax qayb waan ka nahay mar guddi baarlamaanku uu qabtay oo halka yimid waa jiraan dee dad soomaaliyeed waa yimaadaan waan is aragnay laakiin mowqif dowladda puntland ay ka leedahay maxaa yeelay wax rasmi ah oo la soo gudbiya ama preparation kama muuqdo sanadka ugu dambeysa doorashaa la qabanaya 4.5 kiina laga tegi maayo qof iyo codda waa la qabanaya siday isu geli karaan anigu weli aada uma fahmin haddii la leeyahay doorashaa la qabanaya 4.5 chapterkeeda waa inuu xirmaa haddii la leeyahay ma xirmi karo hadda anagu dad soomaali ka duwan manayno xaal mastuurka waa ogolnahay hala isu yimaado bal hala wada hadlo marka xaggee la aadaya waddo kaloo saddexaad aan ima muuqato haddii la leeyahay qof iyo cod oo la yaqaano siday hadda sheegeen oo seejooyinkii iyo degmooyinkii iyo meelihii la dhigaayo ee wax cad la keeni waayo waxa ku xigta waxa weeye in la yidhaahdo maxaa ku xigoo la aadaya laakiin waxyaabaha hadda aan maqlayo oo isku dhex jira oo aada moodi saarar dad tolanaya dabcan dee puntland uma qalanto suuragalna kama aha waxa noocaas kale inay qayb ka noqoto laakiin waxaan inii sheegayaa codka puntland waa inuu mar walba noqdaa mid ka qayb qaadanaya dhismo soomaaliyeed oo midnimo iyo cadaalad iyo federaal ku dhisan waxaan aada runtii madaxweyne faroole intaa maba ogeyn uu lahaa wixii halka ka jiray qolyaha xamar jooga dee qofka xukunka markaa haya xog badan buu ogyahay nimankii xamar joogaa tuuryada halkaa wax ka waday haddee kursigaasa malaha cilladda iska loo cilladii oo kale weli waa jirtaa oo hadda ruuxaddeena dimuqraadiyiintan iyo waxaan awadno waan ka baqayaa in maaragtay wax kusoo dhuudhuuntaan oo cid aanan u arkayn inay dhacdo diidan iyo waxyaabahaas iska dhici karaan laakiin waxaan uga gudbaynaa dulqaad iyo sabir waxaan u caddaynayaa reer puntland iyo soomaaliba kursi jujub laguma helo sidiisaba cid kasta oo jecel inay tartan iyo doorasho ka qayb gasho ilaah baa bixiya rabbi ha ku kalsoonaadaan
dadkooda si wanaagsan ha ugu soo bandhigaan inay rabaan inay u shaqeeyaan oo keliya hana u daayaan maaragtay awoodda inay ogolaadaan iyo inay diidaan laakiin kuwa isbadbadoobeynaayo oo askar iyo buuq iyo qaraxyo iyo hadda waxaa maqlaya nimankii xataa shabaabka waa contractor bay noqdaan waa kiraysan kartaa meeshaas nabad ma aha halkaas laba bumba ku tur ya waxyaabo noocaasa xataa waa la sheegaya marka ciddii isku dayaysa inay khalkhal dad geliso ama amni darro abuurto ama ummadda deganaanshaheeda ay maaragtay khalkhal geliso ama aragti siyaasadeed oo aan meesha oolin ay soo export garayso waxaasoo dhan waktiga unbay dadka ka dilayaan mooyaane natiijo ma dhalayaan ma garata marka waxaan ku baraarujinayaa ama ku boorinayaa dhammaan siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed in si miyir qabta dalkan danihiisa looga taliyo si miyir qabta dalkan danihiisa looga taliyo oo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka dadka soo socda si niyad wanaagsan looga taliyo maxaa yeelay waa nagu filan tahay 30 sano sida aan u egnahay dowlad xumo deganaansho la'aan amni xumo adduunkii oo qadarin waayay hadda waxaa laga lahaa waa la aamini waayey Soomaaliya inay dimuqraadiyad sameynayso beesha caalamka waa frustrated 3 sano waxaa looga qaadanayaa lacag dimuqraadiyad baa sanadka u dambeeya wax leeyahay hirgeli wey hadda waa inay sheegay guddiyo eedaas ani lama wadaagi doono waxa aydan qaban karin lacag ku qaadanin intaa fiican waxa aan masaariicda aad qaadanaysaan ha noqotaan waxa fulin doonto yaysan noqon intaa dadka adduunka hadda waa la bartay PowerPoints iyo proposal fiican oo dadka lagu maaragtay shaxaado yaysan u ekaanin waxaan qabaa waxa aad u gudbinaysaan ha noqotaan wax xaqiiqo oo hadhow aad qaban doontaan oo sumcadna idinka inii soo jeedi doonta Puntland sumcad u soo jeedayso waa nasiib darro maaragtay in guddiyada qaybtood hadda guddiga doorashooyinka ee federal mararka qaarkood aan waxaan kala garan waayaa guddi madax bannaan inuu yahay iyo guddi dowladda ka tirsan inuu yahay shirarka caalamigu ka qayb galaa afka dowladdu ku hadlaayo dowlad goboleedyadu dhaliilaa mararka qaarkood waxaas leedahay ma fahmi kartid mararka qaar waxaa leeyahay maxaa dimuqraadiyadda uga qayb qaadan weydeen hadda dimuqraadiyaddu xaggee taallaa marka waxaan u baahannahay sidii halka laga sheegay xisbiye markii la furto oo sharciga la ilaaliyo dadka lama xiri doono runtii in baa dadka la xiraayo wixii sharciga dhaafo waa la xiraaya laakiin ninkii sharciga ku socdo nina xiri kari maayo maxaa yeelay awoodda sharciga ilaalinaysa marka waxaan rajaynayaa dad sharciga u hoggaansan baa Puntland dhaqan ahaan lagu yaqaanay aan u ekaano dad sharciga ilaaliya magaalooyinkii shalay diidanaayo qarno iyo bursaaraxna hadda ha sii diyaar garoobaan doorashada soo socota si ay u diidin dowladahaas cabdiraxmaan isaga naftarkiisa waxaa lagu dhaliilayay waa waxba u qarsanayaa loo arkaayo markaas orod baa ku jiray marka waa la isku dheganaa marka aan waxay la tahay inaan ka gudubno tuhumka siyaasadeed aniga shakhsiyan waxaan u rajaynayaa dadka reer Puntland inaysan lahayn khiyaar kaleeto oo ah inay isdoortaan iyo wixii doorashadaas ku guuleysay inay ixtiraamaan oo kula shaqeeyaan wax ka duwan oo hadda ii muuqda ma jirto marka waxaan rajaynayaa in arrintaas ay noqoto mid sax ah oo noo horseeda deganaansho siyaasadeed iyo barwaaqo iyo inaan ummaddeena u shaqeyno aad baan ugu mahadcelinayaa inta maanta kasoo qayb gashay hadallada quruxda badan kasoo jeedisay muujiyey dareenkooda ah inay diyaar u yihiin waxaan aada ugu mahadcelinayaa madaxweyne cabdiraxmaan inuu weli u taagan yahay sixidda dowladda Puntland diyaar u yahay nidaamka xisbiyada oo runtii aan qiraaya inuu waqti badan ku baxshay marka loo fiiriyo xukuumadihii soo maray inuu weli u diyaar u yahay inuu tartanka soo socdana ka qayb galo iyada naftirkeeda waxay noo muujinaysaa siyaasadda orahdii la oran jiro ahayd lagama daalo lagamana baxo marka annagana waddadiisa waan haynaynaa waa ku wadaynaa haddii ilaahay